alif amaba ay ka tirsanaayeen iyo cid kasta oo loo arkayay in ay ka soo horjeedo amaba ayna la dhacsanaynba falsafadihii siyaasadeed ee dawladdii hore boqolaal gabdhood ayaa lagu kufsaday jeelka dhexdiisa oo ilaa maanta la ildaran xasuusyo arxan darro ah oo ay jeelka kala kulmeen kumanaan kale oo waayeel iyo dhallinyaraba ah ayaa lagu uusxabaalay jeel ogaadeen oo ilaa maanta aan tiro koob rasmiya laga haynin ciddii meeshaasi ku dhimatay halka kumanaan kale oo ku firiirsan deegaanka iyo daafaha dunida ay ilaa maanta ay cadaalad tabayaan kuwaasi oo iyagana falal arxan darro iyo jirdil isugu jira kala kulmay jeel ogaadeen dhibanayaashii jeel ogaadeen cadaalad ayay tabayaan waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed waxaan ahay gabadh Muslima waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed ani deegaankan aan ku noolahay waxaan galay jeelka 2003 in ahayd baan jeclahay waxaa la iga soo qabtay magaalada Jigjiga gudaheeda xaafadda Tobnaad waxa ay soo qabtay 2 nin oo sirdoon oo wajigooda marka aan horay u arag markii la kaxaynayay guriga la igu yimidayna shacabaan moodayay markii dambe guriga la iga soo saarayna ciidan baa la ii keenay guriga korkiisa taagan oo ciidankina uu boolistaha waa 2 saac oo fiidnimo ahayd waa la soo kaxeeyay waxa la keenay xafiiska marjaaga ee gobolka waxa la igu yiri sheeg soo matid bishaara dirar dhabo naagti dirar dhabo dawada iyo hubka ka qaadi jirtay xilliga ayaga ah qof naafaan ah xabad baa igu tiilay waxa weyn dhibaato aad u badan baa igu tiilay in badan hore jeel waan soo maray laakiin jeel ogaadeen markii la geeyay ayaan ka soo qabsanayaa waxa la ii keenay niman aad u fara badan oo Soomaali ah oo isku lahjadnahay oo guri ku jira buug weyn baa la kala saaray waxa la igu soo bishaare dirar dhabo matid ku soco wixii aad qaban jirtay waxaan ku dhaar waxaan qaban jiray ma garanayo qof shacabaan ahay waxaan cid hoon dib u geystay iyo wax dawladda midna ma garanayo itaalkayga waad u jeedaan de waxaad idinku igu maagteen ma ogiyo waxaan anu isku ogahay malaha waxa la igu yiri dawada dirar dhabo ka soo qaadi jirtay ilaa qabri bayax baad geen jirtay maxay baad sameyn jirtay intaasoo nin baad kaar u gelisay intaasoo nin baad caawisay halkaas aad ku daba leedahay waxaan iri subxaanallah allahayka alla arinta shaqo kuma lihi waxa weeyaan waa lay wada yaqaana caan baan ahay gabadh shacabaan ahay guriga hooyaday dhinacna maana ka aadin waxa la yiri waxa ka bax hadaad qiran weyda arinta xilli aad cadeyn haysaan ku hor keenayna waxba anu iskuma ogi allahayka alla baan iri sidii habeenkii waagu iigu bariyay habeenkii dambaa ii galay waxa weeyaan 6 saac oo habeenimo ayaa la iga bixiyay gurigan ku jiray qabaal baa la saaray buufsan waxa weeyaan halka iyo gidibka layla aaday marka waxaan jecelahay ragii ii waday inay 6 qof ahaayeen oo dablay iyo marka qori wax wata aan isugu dhex jira waxa la geeyay gidibkii waa 6 saac oo habeenimo umadu marka way wada huruday inta shayaadiinta Ilaahay nacdalay mooyeen waxa la igu halkan ma garan haysaa waxaan maqli jiray dadka gidibka lagu ridaa oo war igu ahayd laakiin hore maanan oo arag waxaan dhahaa nacam waan garanayaa waa gidibkii waxay igu yireen telefoon weyn intuu midisa igu iftiimiyay hadii waxaan ku haysana aad qirato halkaasan ka celinaynaa hadii kale halkaas qabri ku aha noloshaadu halkaas ku afjarmaysaa waxaan ku yiri subxaanallah waxaan isku ogahay malaha xal su'aalahaadi weydiin hayseen su'aalahan ka qabay baan imikana ka qabaa nolosha waxa ii haya rabbi hadii rabbi igu kin sababana waa sideeda hadii kalena de waxa weey noloshayda rabbi gacantii bay ku jirtaa wallahi inaana cabsi biyaha gidibka aan maanta waxaan ahayn aan ku sheegaynin wuxuu igu yiri ninka Maxamed gaarana la dhaho war maxaad ka baryaysaa oo ka cabanaysaa marka aad cadaabto ayada xaqiiqada ku sheegaysay waxa weeyaan shalmad baan wanaa yar oo shiidaha oo tii habeen hore guriga la iga soo qaaday shalmadii way iga tuureen shalmadii markay iga tuureen waxaan isiri dirici shiidka nafta waxaan isiri cawrada wax ka darani ma jirto dadka cawradaada marka qaawin hayana waa dad islaam oo ila sinjiyada oo ila diin ah oo ila sumcad ah isma lahayn nin Soomaaliyeed ama nin dhaqan kula wadaago walaalka ayaa intuu ku itaal sheegtay dharka ka siibaya haween xabad waa la isku dhuftaa
وحاويان سبب كله ولا اسكو دلا لكن اسمع أنا لهين طبعاً أو المعدارتها أو اسكو لهجتين اسكو دينتين بدرك كعادية سبحان الله إيمانك دين لي وحاويان درعي بن سأقول أجي وحنري المعدار ريال الدلا وحاويان ساعة يوم بعد مثلا لكن درك هيجا قاوننا ودرك هيجا فرنا ولا لا يلا يقاوننا وحالي ور حاجة بن بإلي كسرة درع الشيت كاسنا شهاتي كسيبول محمد قارني حاويان سروالك والله لابتي jaakad weyn oo koofiyad lagu xiran yahay waa bishii daqintii waxa dhacaya barafkii ugu xumaa sanka wuxuu ka imanaya wadnuhu afku ka imanaya waxa weeyaan waa bishii hidar subhanallah dirci waa la iga bixiyay midil garabkaas uu qabtay midna garabkaas uu qabtay midna dharkii hoos uu iga bixiyay dirci waa la iga bixiyay siday hooyaday macaan igu dhashay anigoo ah ayaa biyiga dhibka la iqaaday afar nin baa iqaaday waxa la dhaxgeliyay meeshii moolka ahayd والله قبوجة بيها مركز كذب عيا أما كموغدي سنبريرة نوع على وجه أيان حصوصتي وحنا بين الدنيا ملك قبو ميترتا قبوجة وحا يقدر هاد المدى والله يقولنا برسع قياس أهان مسكحيا مركان قيمة يستي يا الله يقصو صاري محمد قارنا وحي يقول وحشاك نايا هذا وحي أنكوه يسن الشاك وحنقول سبحان الله وحباني موغ الله هيك الله ولا الآن وحن يسكوه هاي ملها وركوع بيوري ولا يقول وامر لبعض هذانا أنت دي ولا يقول هاي ميد الدبر كوي جت هاي هاي ميد اللجوء جت هاي من الجردوي جت هاي ولا يقص صار مر لبعض مر كان إن بدن ناف كرت بيه عنده يوحي يقعد عين يا وحان لا إله إلا الله محمد ذان يقول وركوع لي إنك أنت دم بيسرع عينه ويقول لي وقف إسلامها توحيد ما لو علي أنا من مركز توحيد هيستم ما قرن هاي توحيد ما أونان هيسنين قف الشهادة حق هاي أنتوا لما يسنن قفك بيها كل بعلي ولي الدنيا ما أنا كم قال إسلامي ما أنا شيئا هاي ويقول لي بيه وحوين مرة صدحات بقى يقص صاري محمد قارن أن عيا شيء بيروح نكوه هيسنة مركز وان شلعي أو ديدي أنا عبي أبدتي لكن الحمد لله مسكحه طام بيت هاي ودرين كي وجهه waxaan iri wax allaala waxaan hayo on sheegay ma jirto waxa weeyaan mar afraad baa lagu celiyay marka afraad ee dambe la iga soo saaray wallahi xaaladdu meel ay marisay ma aqaano dibadda la soo dhigay waxa weeyaan saasa la ii tiiriyay mid baa garabka bidixda ay qabtay midigta aha saasuu ii fadhiisay waan qaawanahay wuxuu iri wareey haday sheegi weydo oy qiran weydo waa markii ugu dambeysay waa qodobkii jaanis ay haysatay kii ugu dambeeyay waxa weyn 7 xabba ku dhufo waa askarigii kor taagnaa subhanallah halkaas qoriga dagtiisa iga saaray afkiisana wuu dhaafiyay firgadu qabtay waxa weyn maskaxdu way xiran tahay waxa weyn miirku iga tagsan yahay laakiin damaamsibu codka igu yahay bila aadanku barsaqan markaa ku jira ma qiyaasi karo waxa weyn xabadiiba bug tiri waxa weyn maskaxdii dhannayd ee biyihii iyo waxaas iga haysteen way ifrantay waxa weeyaan oo biyaha dhaxdooda oo kale laygu sameynayay timahayga marba way dhufanayeen timuhu saas iigu dabnaayeen waa lay dhufanayeen timuhu intaas oo dhan way ifuqeen waa ilaa qadaadka iyo ilaa qoorta timaha barta isaga yimaadaan inta timaha dhan way ogaan way ifuqeen waxa weeyaan baskoolad ayuu maxamed gaarana ila yimid afkeeda intuu soo qabsaday dabadeeda iyo madaxa igala dhacay waxa weeyaan sida waraabaha ayuu xamaga i qabtay waxa weeye bacweelkan ayuu madaxa ii galiyay miirka markaas ay igu dambeysay waxaan soo baraarugay subaxii qolkii layga qaaday xalay anoo dhax aala cid bilow aadmi ah oon rabbi ka ahayn oo igooda ayaga ahayn markaa maysan jirin waxa weyn awood waxaan waay ehelkaygii in xalay layga soo qaaday habeen hore ogaa meelan kaga jawaabo waayo haddaan dhinta reerka iyagu warayma hayaan waayo wax laygu haysta ma aqaano waxaan u dhimanaya ma ogi gabadh islaamaanahay gabadh Soomaaliyeed baanahay deegaanka aan u dhashay dhex taaganayaan xaq u lahaa in hal habeen meel kaga dhixin waxa weeyaan waa ummadaydi ila dhalatay waa dadkii dhibaato haday haysatay EDD-laha islaamnimada meel kaga ma jirto wiilal Soomaaliyeed oo muslim sheeganaya oo shahaadada maanta dhigta ka garanaya inay kugu tuntaan wax la ii haystay ma jirto ururka marka la igu dilayo maanan ahayn waxa weeyaan aabahay kuma jirin hooyaday kuma jirin abtigay kuma jirin adeerkay kuma jirin waxa weeyaan ummadda marka la ii haligayo waxa weeyaan shaqo maana ku lahayn lahjad baa la igu dilay qabiil baa la igu dilay de nimankaas jira adna Soomaali baa tahay qabiilkaas tahay taas aad u dhimanaysa dunida kama jirto haduu aabaha dambi leeyahay in aad dambi lagu qaado dunida kama jirto haduu walaalka dambi leeyahay in aad lagu qaado waxa weey 3 bilood baan barti ku jiray afar yareen oo dambe la igu celiyay biyihii gidibka sidii baa la isticmaalsaday ana waxa weey afkayga ana waxba ka qiranin
waxa weeyaan wax cadaynahoo laygu hayaysan jirin ayaan 3 bilood bartii ku jiray xilligii ka dambeysay ee la yiri dadka wixii dambi lana hal xukumo wixii kale bilaa dambi waxaan dambi lahayn ba ayaga xaqooda dambi baa laga wada lahaay ummadii masaakiinta ahayd ee la iska furayay la iska rujinayay waxa weeyaan guryahooda loogu tagay la soo xambaarayay ummadii markay aqli ka fooq noqotay yaa waxa la yiri ummadii hal kala dhimo wixii dambi la aqoonsi waxa lagu soo qabtay hal iska sii daayo wixii urur iyo maxaan ku dhahay dhibaato kale aan ku haysanana aan xukunno waxa weeyaan waxa noo soo galay maalin maalmaha kamida 3 bilood markaan halkii ku jiray waxa noo soo galay waxa weeyaan ninka la yiraahdo Cabdullaahi Ethiopia ina Sheekh Maxamed Suubane Mukhtaar ayu marrajaayadii deegaanka ka talin hayay oo dhan ee dadka soo gumaadayay ayaa bartii la isugu keenay maalintii dambe waa intaan ka garanhayo ummad badan baa meesha taagnayd waxa dadkii la kala maro wax dadkii la kala maro aakhir xilligii ugu dambeysay ana isoo gaadhay hawshii wuxuu igu yiri Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane naaya halkee laga soo qaftay waxaan ku yiri jigjiga qabalaheed tobnaad halka markaan marayo ayuu Maxamed gaarana soo kacay wuxuu yiri aaba waa bishaara dir dhabe maadan garanayna Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane bartiibu nacala iga bilaabay wuxuu yiri ma naagta guriga laga soo qabtay ninkaas leeyahay ee noocaasa ayaa wali bariiska jigjiga si dhaxunaysa oo cadaadkii jeel ogaadeen aan arag nin ciwal la yiraahdo oo markaa waxaan jeclahay gobolka haystay ayuu u yeeray waraaci walow hee maxaa naagtan dhigay yiri meesha wuxuu aaba gabadhi dambina mala qiraal ma aha waxa weeyaan qof xaqiiqo ku hayo ku cadeynayana ma aha taleefankii uu haystay ciwal ku tuuray wuxuu ku rina ala aabaha ku yaale uba ku xukun uba waxaad aragtay urur dhan qof dambigiisa la saaro uba ku xukun ala aabaha ku yaale ciwal waxa weeyaan halkii amarkii qaatay isla salaadii duhur xilligii waa la kala dareeray waxa weeyaan bari aroortii maxkamadda geeyay la yiri aroortii aniga tu yaro kale ayaa maxkamadda la geeyay waxa la yiri bishaaray 2 sanaad ku xukuman tahay wax la ii soo dhigay ma jirto qof kitaab igu marayay ma jirto qof waxa weeyaan qiraal oo afkiisa wax ka qirtay oo sharciga islaamka iyo ka dawladda waxaasan sameeyay ma aanan ahayn 2 sana la igu xukumay laakiin ani markii xal baan u haystay sidaan ku jiraa ka xumayd waxa weeyaan isla galabtiiba jeel ogaadeen baa la geeyay jeel ogaadeen sidii baan ku galay waxa weeyaan noloshii adduunyo xilliga ayada waan ka quustay waayo xaaladda aan ku suganahay aad bay u dhibanayd lugtayda inta lawga ka hoosaysaa ima shaqaynayso sidii biyihii gudibka la iigu dilay dareenkii ka tagay nabar bay markaaba yeelatay barar inta leeg bay keentay way dilaacday lugtii daaciin baa 4 garjin saa oga yaacaya barar bay leedahay waxa weeyaan waaxda dhan ima shaqaynayso madaxu intaas uu igu bararaya cid ii ogon subxaanallah rabbigayga aan hayna ma jirto waxa weeyaan xaaladdu markay halka marayso ayaan ummadiga daran u imiday يوم القيامة آخر سيدي لغو شيغي هويدو marka ilmaheeda dhalayso ayna war isu haynin noocyo kale intii ogaadeen ugu imitay waxa weeyaan waxa ila xumayd oo ila dhacdo fool xumayd ummad islaam aha oo waxa weeyaan qofka islaamkii dunuubtu waxay ku bilaabataa markii uu 16 sano ama 17 sano gaadho laakiin ma aanan arag ilma saqiir aha oo gaajo lagaga goynaya nafta ilma saqiir oo on lagaga goynaya nafta ilma maxaa kula saqiir ah oo dunuub ilaahayna aan ka gelin adoonna aan ka gelin oo gaajo nafta lagaga goynayo waxa jeelkaysta ninka la yiraahdo Aynsane waxa ka hooseeya Shamaaxiye waxa weeyaan way soo hor istaagi jireen gabdhaha waxay ku oran jireen away dhilooyinkii subxaanallah waa gabdhahoodii waa gabdha islaam ah mid xaraan lagu dhalay malaha mid maxaa kula xumaan samaysay malaha magac anagu dhilooyinkii baanu ahayn subxaanallah away dhilooyinkii markuu noo yeeray waa dhilooyinkii baanu ahayn waa Aynsane iyo ninka Shamaaxiye la yiraahdo maalin walba waxa laga qaaday qolalka ilaa 40 ilmood oo gaajo naftu ka goyso oo saqiir ilaahay ah waxa weeyaan uu 5 jirku ugu weyn yahay oo 3 ugu weyn tahay oo 2 sano ugu weyn tahay oo ka aan gaarin ugu yar yahay subxaanallah ayaa maalin walba meedkiisa laga dhax guray waa saqiir aan ilaahayna dunuub ka gelin qof islaamana aan dunuub ka gelin waxa weeyaan suu ilmuhu biyo u leeyahay ay hooyadiisa ugu ruxayso ee markay arwaaxdu ka istaagtay xagga isaga durkisay meel dhigi jirtay duqaankii adduunka meesha isugu yimiday gaajadii adduunka ka dhacaysay daacuun baa ka dhacayay waayeelku intii uu seexdo dhinaca dhulka dhiga isagoo meeyda laga guri jiray meesha wallahi xitaa qirriqda nafta maada maqli jirin qofkan waa meed markay aroortii inta rooni ka kacdo inta meesha lagaga tagun baa la guri jiray
dhibaatooyinkii jeel ogaadeen iga badnay saqiirkan ana qalbigayga ka bixin waayo ummadan kale ama ha haystaan urur ama wax kale ha haystaan ama dunuub kale ha keento bal saqiirkan kada boqolaalka ah ee kumaanka ee 5 sano ka ugu weeyay ku jiro ayay dunuub ka galeen dadka islaamka taam isweydiiyo waxa la leeyahay jeel ogaadeen shalay dhacda ka dhacday darra dhacda ka dhacday tii kala dhacda ka dhacday tacdiyad baa la soo maray waxa weyn saqiirkii malaayiinta ah ee dadkii dhalay maanta ay ilaawilayeen ee gaajada arwaaxda ka goystay ee raggii taagnaa ee inta sababayay ay maanta feedhaweeyeen ay kuraasta ku fadhiyaan ay wali bariiska ay cunayaan ay wali boqortooyada ay raadsanayaan dadka islaamkii muu ka hadlo xaquuqa islaamkii islaamnimada sheeganayna maxay tahay diinta islaamka hoos loogu dhaadhaco mas'uuliyiinta deegaanka u sarreeyay arrinta ka hadasho waxa weeyaan kumaan kun gabdhood baa la kufsaday cid ay u tirsan tahay maanta ma jirto deegaankeena waxa weeyaan oo tacdiyad iyo dhibaato nooc walba loo geystay kumaan kun gabdhood ciyaalkooda bartaas ku aasayn oo meel lagaga aasay dunida aan aqoon iyagoo meydun laga qaaday kumaan kun gabdhood ayaa la xaadkooda bartaa ku waay kumaan kun baa la hagayay oo intaha bartaa ku beelay dam maxaa ka qaalisan wixii la xad indaha ugu qaalisan bartaas ku indhabeelan waa la hagayaa maanta xagee diinta islaamka u kacday war diinta islaamka ma laga hadlo umada oo caalamka la tuso oo culimo oo diinka islaamka ugu sareeyay ay ka hadasho oo xukuumaddu ka hadasho oo madaxdu ka hadasho oo 24 saac dhibaatada la sheego waxa la leeyahay urur baadshili mataliiseen wallahi urur meena matalina dad islaam xuquuqdooda lagu tumanayaan intuu xaq halka taagan yahay ee waxa weeyaan diinta islaamka laga jiifo ee xaqayga cagta hoostiisa la geliyo wallahi inay cadaalad jirin 30 sano waxa la leeyahay cadaalad baad sugi kan markuu taa ku kala عدالة بسوي كان كل كتر كل كلام من عدالة بسوي حاجات على سيء كتير ما أقانو دنيا النوع كجت على ما أقانو من يوم هذه أدوينها قبل لقى كف صدام الدبعة كل عضو أدوينها لأنه وكقيليا قبل عم حلو كف صدام لها شن بقول أو قبل دوب أو ريرياني أو تشيلو جاي وحلاقيه ليا حيتان كان اللي حد سنكرين أو دقا يديك بكتري أو سمعة كتري أو ما أنت درجة يدينك كل يوم أي سنكرين ضدك لا عشان هو ضدك ورقويها كان لا شيء شريته إلا عشان برينا وحقوق طبعا ما أنت يورد حقوق شباب بحلمه وإيه طبعا آخرين يوري الحساب تيسولتك آخرين اللي يقعد جوان وجهي ومداس هدي عن سمره عن ربي جاي وسمره اللي يقعد جوان وجهي لكن يلا دقاتين ما رنت وأنت اللي لو حلا لقى قبنا يا شري ضد تعديل اللي بيسميه هذانا يعني لقى بيشيء حقيقتها لقاها له ورمتها لقاها له ورمده وحلا قبته وردتك محن كل عدتك النوع أو قال ما تدريتك وده كرليين أيه فيروين هذا حفيز دولته يا هذي كشعبته يا هذي جناح ستايب إيجارية أريد عن ساعة أقول حد المنهي قارن محققين حقيقي عدالة دي قارن من ربي جوا مركو كيران سويا إلهي وحن كبريا ومضي شرع ومضي ساعة شيء إن إلهي سبحان الله تكورو وإلهي سبحان وقاله والله إذا ركبين شيء قول حاران أو أبري إلهي يوقف سمين والله إذا ركشيء أرنت هالكا مريسي والله إنا بينك شيرين وحاوية شنب قل أويل يا مالو على يضحكي لتشيلو بعدين قولي يسا ومالنا انكسوا بيحي دونه مال على عددك على قد الدوية أنا لكتو إيقويس أو إيبرسنتها وحاوية طبعا لبعينكو يقدايو يا ويلك أتصدي ولا لو يجي ميشاس بل نبرد عليك قدقي wiil caafimaad oo jeelka soo gali jiray wiilkii ay kaxeeyay waxaan u tagay 500 oo wiil oo inay duuyeen inay dad yinaada garanaynin oo waxa weyn dad saa u kormartay dad saa u kor istaagtay aan ku fiirin oo indhaha kala furaynin oo waxa weyn nooca ay yihiin aysan jirin war dadkan daanyeer buu noqday wallahi inuu mid ka tagay oo sinjeedoodi dhimatay oo sumcadoodi dhimatay oo diintoodi dhimatay wallahi billahi tallahi inta xaaladu halka taaganta in xaq laga hadlaynina wallahi inayna cadaalad jirin waxaan madaxweynaha ka codsanayaa النوع ما قلي كون محمد جارنا وانا يستا مختار الشيخ محمد سودانا وانا يستا شيلكو كشرابا المقلس لكن محمد جارني أنا يا أنت إلى ميدو اللي بعتبرك الجليد ديجان كل إحنا اللي يبان مقلي إن محكمة عدالة اللي يسوي تابو الله يكانوا وحاولين ضدك إسلام كايسة الله جلين الله كانوا وحن كعود سنة يا وحاولين ملح الصرع شرفت له ملح ما كسر رسالة تاعته مترتي ومدو تدا هذا ملح وينها مصطفى وحن كعود سنة يا ومدنا ضدك ساعة قلي هو الشخصي إنه حفيظ أفرو محكمة عدالة هنا أوكيانو
waraysi la yeesho war qofkan muxuu ka qabaa intaas uu geystay intuu ii geystay ana waxba ku daraynin intuu ii geystay un baan sheegayaa wallahi inaan qowl been ku daraynin ummadii saas isugu dhaxnooshahay wali dilmigii baa socda wali garab riixii baa socda wali waxa socda isfaankii wallahi inaan ku diliga hadda la yiraahdo laba calina in iska weydiinayni dhiigi wali sidii baa loogu faanaa war markii dhiiga la caadaysto ee kufsiga la caadaysto ee waxa weeyaan beenta la caadaysto ee waxa weey booliga la caadaysto dhiigi baa qulqo ummadii waxa sameysay wali taagana xagee cadaaladu ka iman wallahi inayna cadaalad jirin madaxweynaha cadaalad baan ka codsanayaa waxaan ka codsanayaa inuu ummadda simo waxa weeyaan gabdhahan u nahay gabdha Soomaaliyeed baan u nahay dhibaatana loo geystay waa nala dulmiyay maxaa ahay muwaadinad Soomaaliyeed 30 sano halka taagnaa wallahi inaan hal habeen meel kaga dhixin halka markaan gaari dirdhaba maana ka fogeyn halka markaan gaari jigjiga maana ka baxsanayn 30 jir baan ahay 30 jir baan dhiikar ku yeeshay oo ku naafoobay oo laxaadkayga aan ku waayay oo cidi garab taagan iyo cidi aanaysan iyo cid tacdiyadida ka hadlaysan jirin waxa weeyaan kumaankum aqoonyahan oo deegaankan u dhalatay dadka daawanaysa kumaankum professor baa daawanaya culimaawidiinka daawanaya war xaqa laga hadlo oo gabdhaha loo heeliyo oo diina la isugu heeliyo oo cadaalada la isugu heeliyo oo dadku is garab istaagaan oo nin waliba ninka kale walaal ilaahay ku badbaadiyo ha ku caafiyo hadho laakiin wallahi inta dhagariyo cabka dabada la gelinayo ee waxa weey war dhuluma la leeyahay nin kasto deegaanka ka baxsan dad baa diraya war intaan dhibaato lagu keensan ka baxsan la leeyahay maxaa ka baxsan loo leeyahay walaalka hadii dambi galay soo qabo بريد وانت لقب سميسد مركي اللي علاميه والله هنا لقب سنين والالكا سو قبو قبل انو دنبي كغلي ولاشي دنبي كغلي نبيرتي بو كغلي ابي بو كغلي هويدي بو كغلي سقير بو كغلي ور هل يراهدو ور دنبيلها امده laga soo qabto maxkamad cadaaladana hal la saaro war sidaas umadu ku caafimaad oo ku bogsan waxa weeyaan kiibuka ee caafimaad darro la jiifa ee la tahay ee la dhibaataysan madaxweynuhu hadda weeyo dadkan waa dadkiisi umadan hoos u eego oo ha ku foorsado oo hawdada nuglaado oo habeenka inta badan soo jeedo inta badan inta yar ka seexdo madaxweynaha taas u soo jeedinaya waxa weeyaan 10,000 oo gabdhood ayaa ku indaran deegaanku ku dhaxnool yahay 35 sano sugay xaq cadaalad ah iyo maxkamad cadaalad ah waxa weeyaan 24 saac gudahood ayaan hoos fadhiyay maalintii Mustafa deegaanka yimid oo aan balyeynay oo ducaynay waxa weeyaan dadka nooca u sugayaanahay dadka nooca u soo dhaweynayanahay waxa weeyaan cadaalad waxba ma ka doon jirin waxba kama rabin waayo ninkii dulmiyay umadayda dulmiyay buu ahaa maxkamad cadaaladina kama jirin haddii maanta la leeyahay maxkamad cadaalada timiday oo madaxweyne cadaalada yimid oo islaamnimadii waa iftiintay intii garabka la isqabsado oo diinta islaamka kor loo qaado kor hoosana loo soo eego oo waxa weeyaan ummadda saa u dhibaataysan ee saa u dayacan ee caafimaad iyo maxaa ku dhaqaalo iyo dhimirba ka dhibaataysan mudane Mustafa hoos u eego ummadiisii baan nahay wallahi inaan la oranaynin shalay toole maxaa ku leeyahay madaxweynaha ahayd iyo maxay baadeed iyo waa feerweyneed kaliya baa ummadda laga xisaabtamaya kaliya aakhira markuu tago mas'uuliyadda saaran ummadda dhan buu mas'uuliyahay Mustafa waxa weeyaan dhibaato inta deegaanka uu joogay 2 sano cagacaynaya wali dhibaato ma soo gaadhin haddaan gabar Soomaaliyeed muwaadinada aan ahay oo deegaanka Soomaalida u dhashay oo dadkii la ka tooray xanuunada la ka tooray sidoo ummadda loo ka tooray haddaan ahay ee la iska ilaalinayay mudane Mustafa hoos noo soo eego dad islaam aan u nahay gabdhahoodii baan u nahay dadku mar walba ku dul baraaran lahaadaan u nahay waxa weyn ururiyuna lagu moosin ururiyuna madaxa noo saarin ururmaana u dhimanina islaamnimada shada u dhimanayna waxa weeyaan urur aabahayna ma hayna walaalkayna ma hayna hooyadayna ma ahayn waxa weey sinjiyad iyo qabiilkaas ka soo jeedaan shada u dhimanayo war qabiilkeen sugaya waxa weeyaan samra hana yiraahdo aakhira jaa'isu rabbi idin siiyo suga oo sheekada dhaqdhaqaaqeeda hal daayo wayna ka ahayn Mustafa waxa weeyaan kulankii darab khamiistii uu nala yeeshay wixii ka dambeeya waxa weeyaan kulamista joogtaha noo sameeyo hana bogsiyo hana caafiyo waxa weeyaan sanadka haafkiisa 10 qof daweeyo sanadka haafkiisa 10 qof daweeyo Mustafa umada wixii dibad daweeyo tahay wax yar bay noqonaysaa dhaqaatiirka caalamka iyo kuwa aadisada umada ka daweeyo waxa weeyaan uu kafaalo qaadi kara waa madaxweyne adduumadiisa u qayliyo oo maxaa ku dhaca aqoonyahanka uu weydiyo oo muslimka uu weydiyo oo mar walba baroorta badiyo Mustafa ilaahay agtiisu maxaa ku dhaca garab ka helaya laakiin hadii qabiil hebel baadahayd iyo shalay toole ururbaad mataliisa wallahi xaaladu dhaafiyaydo wallahi xaqiiqadu bariba iman dunidan la saaraan maayo maalin la isxisaabin oo qof walba qowlkiisa gacanta u geystay la iska waran baa jira umada dulmidayna
si cadaalad ah ugu soo dhaweeyo waxa weeyaan hana hor keeno ninka nool ha hor keeno ha ku qanciyo war sheekaysta qofkaasi wuxuu kugu sameeyay hadho mudane Mustafa sheekaysta adigoon dulmiyeynin adigoon xaqirinin qofka la sheekaysto wixii kugu sameeyay aniga waxba ku darayn oo rabbi i xisaabinayo diritoole intuu ii geystay baan u sheegay iyo intuu cadaab iyo intuu dhibay iyo intuu qaawiyay iyo intuu gidibka igu riday iyo intuu qidaaday iyo shahaadadeedii uu kala jaray ee islaamka ayaa la xisaabtamaya hadii ii keenay maxamed gaarana maxkamad cadaaladaha mukhtaar sheekh محمد صوبنا هو حريهي وعلى شيء لكن وحن كعد صنايا محمد جارنا منك أثر بريء قوي وحوي سنه يدا يقول شيء يقعد طبعا من قعنت يجلي وحوي الطمي تلك يقال جام حنقول على حبوب المال ومحاول حدث كي كتاريه وحوي المال والبان كعبنا له هذو محكمة العدالة ترتها لا يقول على هذا لا يمكن حتى يجي عنك قصته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.